Wiil ayaa dhigan jiray jaamacad. Aabihii wuxuu ahaa nin maalqabeen ah. Wiilka wuxuu aad u jeclaa gawaarida cayaaraha sports cars. Wuxuu ku taami jiray inuu helo gaari noocaas ah. Kadib markii uu dhammeeyay jaamacaddii ayuu aabihii ka codsaday inuu helo hadiyad, balse muusan sheegin waxa uu doonayo. Aabihii oo ogaa waxa uu jecel yahay wiilkiisa ayaa maalintii dambe u yeeray inankiisa kadib u dhiibay baakad sajalaysan. Wiilkii ayaa furay baakadkii, markaas ayuu ka arkay kitaab Qur'aan ah. Inuu xanaaqay ayuu yiri wiilkii, lacagtaa ogahay ayaad haysataa, balse Qur'aan ayaad ii qortay oo kaliya soo maaha. Markaas ayuu albaabkii ka degay. Isagoo hadal kala dhihin, wiilkii guriga aabihii ayuu ka tegay. Nin wax qabsada ayuu noqday. Shaqo iyo ganacsi ayuu yeeshay. Kadib sanado badan kadib ayaa waxaa u yimid akhbaar baroranaysa in aabihii geeriyooday uuna dhaafay dardaaran inuu dhaxlo maalkiisa, sidaa darteedna ay tahay inuu yimaado uu waraaqihii saxiixo. Aabihii uu duugo. Markii uu soo baxay, waxa uu yimid meeshii aabihii deganaa. Aaskii kadib ayuu bilaabay inuu gurigii aabihii baaro, hagaajintii waraaqihii aabihii. Markaas ayuu galay qolkii khaaska ahaa ee aabihii. Wuxuu arkay baakad meesha yaala iyo waraaqo. Markaas ayuu arkay kitaabkii Qur'aanka ahaa ee aabihii siiyay oo halkii yaalo. Wuu qaaday. Waxaa hoos yaalo bashqad. Wuu eegay. Waxaa ku qoran heshiis aabihii la soo galay ganacsatada gawaaridii uu jeclaa, isagoo wiilkii uu soo gaday gaarigii uu rabay ahayd inuu diilarka keeno gaarigaas. Dhowr beri kadib, oohin ayuu halkii la fariistay. Wuxuu ogaaday inuu aabihii maalintii horeba gaariga soo iibiyay, balse uu sugayay keenidiisii. Quraankiisa uu u gafay. Aabihii xiriirka ka goostay. Wuxuu gartay qaladaadkiisa foosha xumaa, balse waa mar meesha lagu kala tagay. Haddaba meeqa mar ayaad Ilaahay nimcadiisa aadan sugin oo degdegsiimo ku dhaafisaa mar walba? Goorma allaala goorta ay tahay wax hubso. Hana degdegin, ileen shaydaanka baa degdegay. Walaal u sii gudbi walaalahada muslimiinta ah. Subscribe-na saar, share-na u dheh walaalahada muslimiinta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa idin la socodsiinaya waa anigoo magacayga ahaa Qadar Axmed.